qasriga madaxtooyada qaranka ayay ku qabsoontay munaasabada 61 sano jirsiga gobonimada dalkeena oo ku suntan habeenkii u horeeyay ee ciidda hooyo laga taagay calanka buluuga ah oo xor ah abbaara 12 saq dhexe 26 bishii Juun sanadii 1960 fagaaraha xurriyadda magaalada Hargeysa ee waqooyiga dalkeena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ra'iisul wasaaraha xukuumadda injineer Maxamed Xuseen Roble gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka gudoomiyaha maxkamadda sare mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dawladda madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo marti sharaf kale ayaa goobjoog ah munaasabadan oo lagu soo bandhigay taariikhda dhumucda weyn ee halyeeyadii halganka adag u soo galay goobidda gobonimada dalkeena madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay habeenkan taariikhiga ah ayaa dul istaagay qiimaha uu muwaadiniinta Soomaaliyeed ugu fadhiyo halgankii xaq u dirirka ahaa ee halyeeyadii SYL iyo dhaqdhaqaaqyadii kale ee gobonnimadoonka u soo galeen raadinta madax bannaanida dalka shuhaadadii dhiigooda udgoon u daadiyay difaaca dadka iyo dalka Soomaaliyeed isagoona bidhaamiyay sida 61 sano kadib dawladda Soomaaliyeed ay uga go'an tahay kamira dhalinta hadafkii ay lahaayeen halyeeyadaasi Soomaaliyeed ilaahay baa mahad leh oo caawa halkan munaasabadan isugu keenay waan u dabaaldegayno xuskii sanad guuradii 61aad ee ka soo wareegtay 26 Juun 1960 oo ah markii gobolada waqooyi ay ka xoroobeen heeryadii gumaysiga iska qaadeen waxaa ka horeeyay habeena badan oo SYL iyo horseedkii leegada ay soo mareen dhibaatooyin badan ay hooyan waayeen dhibaatooyin culus ay soo mareen madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa adkeeyay muhiimadda in la maamuuso maalmaha xurriyadda iyo midnimada dalka isagoona muujiyay sida uu u xoogeysanayo dhaqdhaqaaqa cusub ee ku aadan garab istaagga dawladnimada iyo baadigoobka midnimada ummadda Soomaaliyeed waxaa ii muuqda oo aan arkayo waayahan dambe hawladeeno ururo ah oo midnimo doona oo qaarkood aan la kulmay dhaqdhaqaaqaas midnimo doonka ah waxaan ku matali karaa inay leeyihiin halgankii aan naqaanay oo SYL inay leeyihiin wax u eg inay leeyihiin waxaan rajaynayaa inay xoogsadaan sida ummadda Soomaaliyeed loo mideeyo warshadadu hadda waxay ku sii shaqeysaa 12 saq dhexe waana waqti ka tilmaaman dhammaan baaxiliyada caawa soo dhaafnay waqtigan oo kale 26 Juun magaalada Hargeysa gaar ahaan fagaaraha xurriyadda ayaa laga taagay calanka jamhuuriyadda 61 sano ka hor goobtan ayaa loo diyaariyay in calanka jamhuuriyadda la saaro waxaana saari doona cutubyadan ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyadoo goobjoog uu ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo calansaarka kadib mar qura ayay marxaladda caasimaddu isbedeshay waxaana wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho isugu soo baxay boqolaal ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed Shucayb Maxamed Cali warbaahinta qaranka madaxtooyada dalka